gobolka banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaara meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed